أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنا كان سلام يا مدحوينها جمهورية الصومال أحمد محمود يمر وديسة دولتنا هكو قرب قشور شركة تلسون أما صن قاس adeegyada sidii awalba mashaariicda ay ugu garab gali jirtay waxaan soo jeedinaa iyadana wixii ay u baahdaan ay ku garab gasho. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. haddaan munaasabadda u soo noqdo halkan madaxweyne aynu joogno ka hor intii aanad ogolaanin waxay iska ahayd meel bannaan oo cidna aan intifaacsanin. maanta se laakiin qaranka waxay u tahay wax ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey oo badbaadin doona dhirteenna gubanaysa ee ilaa buur ilaa bannaan dabka la suray ee aynaan awood badan u lahayn inaynu xakamayno ayay si fudud u xakamayn doontaa. taasna waxay ka turjumaysaa siyaasadda qaranka aad ku hogaaminayso in lala fudaydiyo oo muwaadiniinta investorka ah ee maalkooda u huraya qofka muwaadinka markuu maalka inta hantida intan lee geliyo malaayiin doolarka ah ayaa qofka kale ajnabigiina maalkiisa gashanaya. aad iyo aad baan u hambalyaynayaa, aad iyo aad baan ugu ducaynayaa. waxaa hambalyadu taramaysee telesom group iyo songasba waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa gurmadka ay shacbigooda u sameeyeen, shacbigooda u gurmadeen. waxaan leeyahay hal la ilaaliyo weliba qolada dowladaha hoose yay moodin inay cashuur ku waajibtay waa in iyaga la tabantaabiyaa, waayo waxay badbaadinayaan dhirtaa dhan ee maanta dabka ku sugnay deegaankeenuna bay badbaadinayaan. marka waa in la isgarab taagaa. mudane madaxweyne markii halkan hawshan waday baan maalin keenay wasiir sacad oo qorshaynta ah. dabeedna waxaan ku weli waxaa halkan maal gashaday dad maxaan ku dhahdaa reer somaliland oo hantida intaa leeg bay gelinayaan. caqabad yar baa haysatay oo markaa wuxuu aad iyo aad ula yaabay. wuxuu ihi haddii intan dhaqaalaha intan la eeg lagu horay sidee baa lasoo hortaagi karaa? marka waxaan leeyahay wax kastoo horumari caqabad bay leeyihin, challenge bay leeyihiin. guul kasta waxaa barbar socota guuldaradeeda. haddaad guuldarrada ku mashquusho waxaad luusgaranaysaa guushaada. markaa mudan madaxweyne siyaasadaada togan ee aad ku haagaysid ee aanad ku mashquulin kuwa meelaha ka nacnacleeye mar kastaba horumarka wax ka sheega. waxaa la qaadanayaa siyaasadaada togan ah in horumar un laga shaqeeyo ee aan lagu mashquulin dadka magaratada ah ee ka soo horjeeda horumarka iyo mustaqbalka dalka iyo dadkaba ka soo horjeeda. mudane madaxweyne mashruucani waa mashruuc ay ku midoobeen dhammaan bulshaweynta reer somalilan meel kastoo ay joogaan guda iyo dabadba. waa mashruuc muddo dheer aanu soo wadnay oo runtii yani sidaa uu cabdishakuur sheegay caqabado fara badani nagaga hor yimaadeen. nasiib wanaagsan waanu u dhabar adeegnay oo wixii caqabad ahaana waanu ka guulaysanay. waa kaa maanta aad arkaysaan bilicdiisa iyo yani quruxdiisaba aynu maanta furitaankiisa u fadhino. farxad bay noo tahay maanta madaxweyne oo bishu tahay 25 maaris 2017 inaad xadhiga ka jarto kaydka ugu weyn ee gaaska wax lagu karsado largest terminal in Horn of Africa kaasoo ay maalgelisay shirkadda Telesom. mashruucani sida aan idiin sheegay waa mashruuc ay dhammaan dadka reer somaliland ku midoobeen ayna hormuud ka tahay shirkadda Telesom oo runtii dalka wax badan gelisay. aanan rajaynayo insha allahu tacaala maanta midhaheedii inaynu goosanno annagoo ka duulayna madaxweyne siyaasadda dowladda somaliland ee ku aadan ilaalinta iyo badbaadinta deegaanka isla markaana daboolayna baahida dadweynaha ay u qabaan inay dhuxushii wax u beddelo helaan ayaanu runtii fikirnay oo go'aansanay inaanu samayno mashruucan aad maanta arkaysaan. waxaa laga joogaa muddo imika 10 sano ah 2008 baanu aasaasnay. waxyaabihii nagu kallifay runtii aniga iyo tiimkaygu waxay ahayd magaalada dhinaca koonfureed baanu ka degnaa. waxaana subax kasta marka salaada subax la tukado magaalada Hargeysa soo gala
intaas oo gaari oo dhuxul sida dadka magaalada caadiga ee 8-9 soo kaca ma oga gooray soo gashay dhuxushaasi iyagoo oo meelii loogu talagalay yaalla un bay arkaan laakiin qofka dareen kale ee isagu subax hore kacaya wuu arkayaa inay tahay dhirtiisii iyo noloshiisii iyo deegaankiisii oo lasoo googooyey oo lasoo shiday sidaas darteed waxay nagu kaliftay in la yidhaahdo war aan maadaama dadka dee ragba waa ku rageed saban walba raggiisaa taliya saban waliba ummaddii ganacsatadiisaa dalka wax u qabta aan dalkii maanta wax u qabanna maxaynu ku celinaa waxaanu go'aansanay inaanu samayno feasibility study aanu leenahay dhuxusha maxaa inoo bedeli kara istadhigii wadnay dalal badan baanu tagnay dhul badan baanu u safarnay sidaanu u wadnay gaastaasaanu ka bari weynay natiijadiisina insha allahu tacaala maanta waa aragtaan waxaananu rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu wax aad u badan aynu kaga raysan doono oo aynu runtii kaga aynu maaragtay isticmaalkii dhuxusha ay inoo bedeli doonto mudane madaxweyne lafdabarta dhaqaalaheennu waa xoolaha nool haddii dhirta la xaalufiyo xooluhuna noolaan maayaan haddii xoolaha la waayo dhaqaalaheenna oo dhan ayaa hoos u dhacaya xataa dekedaheenna aad arkaysaan wax laga dhoofinayaa ma jirayso haddaynaan si la yaab leh ugu guntan oo ula dagaalamin jarista dhirka waxa inagu waajiba inaynu la dagaalanno cid kasta oo dhirta jaraysa waxaynu ognahay oon daahinaga saarnayn in intii dhirta la jaray in abaarihii soo bateen oo roobabkii yaraadeen waa wax aasaasiya oo qof kasta oo maanta tacliin leh iyo mid kasta oo aan tacliin lahayniba og yahay in ay meesha dhirta lahay soo jiidato ay roobka soo jiidato haddaan tusaale idin siiyo maanta haddii aanu leenahay 30 kun oo macmiil waxay noqonaysaa reer waliba oo 30kaas ka mid ah wuxuu shidan jiray ugu yaraan 3 geed oo qoyan oo layfaba inta la soo gooyo dhuxul looga dhigi jiray isku celcelisahan haddii 30 kun 3 bishii lagu dhufto 3 geed waxa weeye 90 kun oo geed bishii oo kaliya sanadkii waa 1,800,000 bay soo gaartay ilaa hadda yani beermaanta calaa sanad ay badbaadisay waxaanana kulliba aanu insha allahu tacaala statistics-ka iyo xisaabaadka rasmiga baanu taa ku soo bandhigi doonaa idanka ilaahay laakiin soo far waa waxyaabaha aanu qabanay ee rasmiga ah ee aanu farta idinka taabsiinayna haddii ay bayno intaa marka laga yimaado mudane madaxweyne ilaa hadda waxaanu maalgelinay lacag dhan ilaa 10 milyan oo dollar lacagtaa waanu heli karaynay mudane madaxweyne inaanu bariis iyo baasta iyo yani intaanu jayno tagna alaabo badan soo helno faa'iido degdega ka samayno waad garan kartaan intaanu u samraynay dadkii markaanu furnay joogay rag badan baa imika ila jooga intaanu muddada u samraynay ilaa hadda halkaanu soo gaarnay waxaan uga jeednaa dalkiina uga taga wax dhaxalgala oo ummadda ugu dambaysa idinka intifaacsato sidaas darteed baanaan marnaba aanay qorshaha iyaga ku jirin inaanu ama faa'iido degdega helo ama aanu helo yani cash degdeg oo aanu urursanayno focuska iyagu waxa weeye inaanu deegaanka badbaadino oo aanu runtii si weyn aynu isu garab istaagno adiga iyo dawladdaada oo isku dhami waxaanu idinka rabnaa dhiirigelin iyo garabgal wax alla wixii carqalada ee naga hor imanaya insha allahu tacaala inaa idinku jidka noo banaysaan inta kalena anaga nagu sii daaye mudane madaxweyne terminaalkan maanta aynu furayno wuxuu inoo leeyahay faa'iidooyin fara badan waxaanu runtii ugu muhiimsan inaanay horta balgaastu inaga kala goyn oo carqaladihiina soo maraya qiimo bal horta wax kastaba ha sii noqotee inaanu gaasta inaga kala goyn mar labaadka halkii aynu retail ama tafaariiq gaasta kaga soo iibsan jirnay maanta wholesale baynu ku soo iibsanaynaa waxaananu rajaynaynaa imikaba insha allahu tacaala inaanu ku dhawaaqno qiimo dhimis waxaananu ku maamuusaynaa qiimo dhimistaas in halkan kaga dhawaaqdo wasiiradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga shukri oo insha allahu tacaala markeeda ka hadli doonta waqtiga badan eed soo gelisay in shirkaddan private-ka ah aad u dhiirigeliso in maanta halkan terminaalkan oo loo baahnaa somgaas aynu u furno laba ujeeddaan u fahmay inuu madaxweynuhu waqtigiisa qaaligaa soo siiyo hawshan iyada maanta aan u joogno kow dhiirigelinta ganacsiga private-ka loo leeyahay oo siyaasadda dawladdana kow ka ah dastuurkuna damaanad qaaday suuqa xorta ah inuu taa dhiirigeliyo madaxweynuhu waa u yimid ta kale labaad badbaadinta deegaankeenna oo aynu meel halisa ka taagannahay geedkeennii go'ayo abaarayna gelayaan dhulkii xaaluf ku dhacayo walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxihaa baa ilaahay yidhi arlada ilaahay baa dhirtan inoogu beeray ha fasaadinina markuu idiin wanaajiyey intaa dabadeed baa la yidhi geedka ilaahay inoogu beeray arlada dusheeda diinteenna xaniifka ahi
colaadda dhexdeeday badbaadisaa nabad in lagu jaro iska baddaa markuu nabigeenu tilmaamayay dadka jihaadka galaya ee uu xuquuqda dagaalka sugayay maaha 1948 Geneva Convention articleska la qoray kuwa nabigeenu qoray baa ka wanaagsan xuquuqda dadka madaniga ah uu sugay yaan la laynin dadka caruurta ayaan la laynin waayeelkii duqeyda ayaan la laynin geedka cadowgu ka hoos galo geedka cadowgu ka hoos galo ha isku dayin inaad ninka hoos galay geedka isku jirto waayo geedka badbaadi dadku anfaca xayawaanka ku nool quraanta ku nool marka col iyo abaarba col iyo nabadba waxa lagu badbaadiyay inaan geedka la jarin marka si aan geedkeenu u go'in baa madaxweynuhu halkan u dhiiri gelinayaa in shirkadan Telesom Somgas maadaama ay keentay gaastan oo loo baahnaa siyaasadii dawladuna ay garab joogtay oo cashuurtii free looga dhigay iyagana aan ka rajaynayno inay standardka nolosha dadkeena ku qiimeeyaan in household kasta qaadan karo Somgas inuu ka shado waxaa runtii farxad noo ah madaxweyne inaad nagala soo qayb gasho furitaanka terminalkan oo muddo dheer runtii aanu ku taamaynay inuu inoo dhammaystirmo aanu soo marnay marxalado runtii kala gedisan ganacsigu wuxuu iska leeyahay sideedaba challenges buu iska leeyahay markii runtii aanu samaynay filling stationkii ugu horreeyay Hargeysa waxaanu islahayn halkaasaa dadka haqabtir ay u noqon doontaa mashruucani laakiin may dhicin oo waxay runtii noo keentay inaanu wax la yidhaahdo soo taankisaanu ku keenno kharash badan oo ku baxo runtii carqalad fara badan aanu kula kulanno qiimihiina qiimo macquul ah oo dadkii wax lagaga iibin karo oo bii'adeena lagu badbaadin karo aanu ahayn taas ayaa kadib markaanu daraasad samaynay ay noqotay inaanu alifno ama aanu samayno terminalkan iyo ra'yigiisa runtii wax waloo la bilaabayaa wuxuu leeyahay maaragtay carqalad ayuu leeyahay waxyaabaha runtii aanu ku barannay waxaa ka mid ahaa ciidda oo keliya inaad qaadidood analyse garayso ayaa runtii muddo taqriiban 8 bilood ku dhow nagu qaatay waayo qaabka loo dhisayo taangiyada noocay noqonayaan waxay noqon doonto ayaa runtii daraasadaha noocaasina dalkeena shirkado ka sameeyaan ma jiraan waxay noqotay inaanu runtii tunka u ridanno intaas waxa noo sii dheereyd iyadoo oo dabcan shirkadii aanu samaynay ribixi laga filayay aanu intaa soo baxaynin oo sanadkii ugu horreeyay khasaare aanu u soo bandhignay dadka waa garan kartaan qof 5,000 ama 10,000 oo dollar aad ka soo qaaday marka tiraahdo 20% baa ka khasaaray halka go'aysa runtii taas aan ugu naxdib badnayd laakiin waxaanu jecelahay geedi dheer baynu galaynaa inaan noo dhabar adeegtaan insha Allah taala xagga dambe ayaydun maaragtay ay ka khayrisaa oo wax ka heli doontaan wuxuu geedigii nagu qaatay muddo taqriiban 10 sanadood ah waxa madaxweyne aanu halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa mar walbaba aan runtii qalbiga ku haynaa maayarka magaaladan Berbera gudoomiyaha wasiirka deegaanka wasiirka maaliyadda iyo dhammaan xukuumadda inteeda kale oo garab iyo gaashaan runtii noo ahaa na dhiiri gelinayay wax waloo naga hor yimaadana runtii nala garab gelayay oo wax nagala qabanayay dabcan ganacsigan wuxuu abuuray silsilad ganacsi taas oo keentay in shaqo abuur fara badan ay bulshadeena ay runtii u samayso fawaa'id fara badan oo walaalkii Cabdikariin oo halkan ka dhawaajiyay ayaa uu terminalkan runtii keeni doonaa marka ugu horeysa bii'adeena bii'ad nadiif ah ayuu ka dhigayaa waxaan aynu isticmaalaynaa mid baabiinaya ma noqonayo wuxuu keenayaa in wixii muddo in wax lagu kariyo ama lagu shaqeeyo muddo qaadan jiray inay degdegsimo ay keento waxa uu keeni doonaa in wixii wax fudud oo si fudud loo qaado oo la rari karo uu noqdo waxa kaloo keeni doonaa iyadana in si joogto ah aynu u heli doonno insha Allah waxay nagu filan mar walba maadaama imaka madaqada kii ugu weynaa aynu ka samaynay maraakiibta ay noo diyaar yihiin insha Allah inaanu inaga kala go'i doonin ayaanu macaamiisha iyo dawladaba ugu bishaareynayna qiimuhuna uu runtii noqon doono qiimo macquul ah waxa runtii aan ku soo gabagabeyn lahaa iyadoo aamin dambe aan joogno
wuxuu ganacsigani keeni doonaa ganacsiyo badan oo ka sii dhasha una baahan runtii gacan qabashadiinna oo ay ka mid yihiin in lagu isticmaali doono gawaadhida mashiinada waaweyn inaannu abuuri doono blending plant wax la yidhaahdo oo intaannu soo dejinno aannu halkan ku sii samayn doono halka imaka maraakiibta isagoo maaragtay jaa'isa uu soo qaadayo ma noqon doono oo keliya meel lagu kaydiyo insha allah waxaa hamigeyga uu yahay inuu noqdo mid aan wax kaga soo saarno oo bulshadeenna runtii isbeddel weyn ku keena mudan madaxweyne inkasta oo gacan qabashadaasoo dhan ay jirtay oon idinka mahad celinayno kolley miyarooyinka lama jecle nin odayah ayaa gabadh miyaro ah guursaday oo islaantii u sodohod ahayd baa timi dabadeed xoolihii iyo wixii uu wanaajiyo uu raray ilaan inan yar buu ka hayaa waxay tiri sidaa lagu kala tegi maayo waa laysku soo noqnoqon marka madaxweyne waxqabashadii runtii aanala soo qabateen innagoo idinka mahad celinayna haddana waxaannu idinka baahannahay mar walba gacan qabashadiinna waayo waxa aannu odarasayno ee aannu insha allah rajaynayno aanu ku riyoonayno inaannu ka dhabayno aanu jecellahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin kasoo qaybgalka iyo maamuuskaana soo sharafteenba jazaakum allahu khayran sharaf iyo qiimo weyn bay noo tahay inaynu maanta daafurayno shirkaddan qiimaha leh ee runtii samgaas oo runtiisii la sharaxay muhiimaddeedu ahayd inay badbaadiso deegaanka mudane madaxweyne sidaa uu kuu sheegay maareeyaha maxay shirkaddan samgaas wasaaradda ganacsi ahaan waxaannu runtii kala dardaaranay amaanu in badan kala hadalnay inay wax ka qabato qiimaha ay hoos ugu dhigto dadka ay ganacsiga la leedahay ee xidhiidhka la leedahay iyo ganacsatadooda waxaynu ognahay runtii waxaa inoogu daran inoogu khatarta badan le waxa weeyaan waa deegaan ahaan maanta waxa weeyaan waa environmentig iyo baabaaya mar uliqa wuxuu yidhi saddexdii geedba hal geed baa laga sameeya lakiin anagu research ber aanu samaynay waxa weeye 5 geed ayaa gadbadda dhuxul ay ka samaysantay beriga waxaan ku qiyaasnay 100,000 oo dhuxul ah in la soo geliyo bal 100,000 oo dhuxul aad ku dhufataan bishii 5 ku dhufo 500,000 oo geed weey macnaheedu waxa weeye adduunyada sidaan u noolnahay runtii oo waxyaalo aad loola yaabo oo macnaheedu waxa weeye aan halkan ku soo gaarnay dad 100 sano oo geed garaacayo jaraya waxaan leeyahay runtii waxaan aaminsanahay inay wax badan ka qaban doonto qiimuhuna dawladduna runtii waxay investmentka intaa leega ballaaran hadday tahay dhulkii hadday tahay cashuurihii iyo hadday tahay waxyaalihii kaleba waxaa loogu saaciiday waxa weeyaan runtii in iyaduna qiimihii runtii ay noqdaan qiimo la jaan qaadaya oo dhuxushii qofkii gadbadda dhuxusha isticmaalayay uu odhan karo samgaas macnaheedu waxa weeyaan baashii ahaantii gaasta la isticmaalayay ayaa iga jabnaanaysaa maalintii runtii aad dekreetada noo soo saartay ee aad noogu soo saartay si ay dadka loo xakameeyo oo dhirta runtii loo badbaadiyo dekreetadii aad noo soo saartay 2014 si weyn bay noo anfacday waxay nagu anfacday in aanu u yeedhno shirkadihii ka shaqaynayay in ay badbaadiyaan runtii dhirta waxaanu ku heshiinay shirkadahaasi samgaas ka mid tahay unigaas ka mid tahay iyo in allaaliya inta soo dejisha shooladaha yaryarba oo siid ka mid tahay dalka wada keena waanu u wada yeedhnay marka ugu horreysa waa in aan la helaa oo dalku helaa tamar jaban oo affordable ah waa inaanay kala go'in tamartaasi wasaaradda maaliyaddu way ballan qaaday iyo baarlamankuba waxay ballan qaadeen in iyaga qudhoodu ay ka dhaafayaan wax allaaliya wixii cashuura si ay dhirta loo badbaadiyo dekreetadaasi intay maanta tartay waynu arkaynaa halkaynu maanta taagannahay iyo halkaynu maalintii taagnayn waynu arkaynaa maanta guul waxaynu ku taagannahay inay shirkadda telesom ay maanta ay ku dhawaaqday iyo shirkadihii la midka ahaa 15 inay haanti noqonayso maanta inay 15 noqonayso waddanka oo dhan waxa kale ah xusid mudan sadkii lagu iibinaya 135 sadka isku xiran ee 130 lagu iibinayay in iyaguna noqon doonaan 95 inay ku soo dhici doonto waxa weeyaan hudheelada 13 ana ka tago waa 13 hudheeladu waxay iyaga qudhoodu ku iibsanayaan haantii $13 ay noqonaysa
qolooyinkii shooladuhu waxa weeyaan iyaguna waxa weeyaan waa tax free cashuur bixin maayaan shooladii ay siinayaan 18 20 waxay ku soo dhacaysaa iyaduna 10 12 8 9 say u kala aslisan yihiin ayaa iyaguna ku soo dhacaysa mudanayaal iyo marwooyin farxad weyn bay tahay aniga iyo madaxda kale iyo weelisa inaanu maanta ka soo qayb galno munaasabadda xariga lagaga jarayo terminalka lagu kaydinayo gaaska dabiiciga ah ee laga hirgeliyay magaalada Berbera oo kale waxaan mahad ballaaran iska leh Allaahna weyn ee inoo fududeeyay wax kasta mar labaad waxaan jecelahay inaan si gaar ah u bogaadiyo shirkadda Somgas ee ku dhiiratay inay dhiso terminalka casriga ah ee gaasta waxaa hubaala inuu mashruucani wax way ka tari doono mustaqbalka badbaadinta deegaankeena xaalufay waa hubaal in xarunta ganacsi la geliyay aqoon iyo adduun badan taasoo sabab u noqotay in shirkadda Somgas ay sabar u yeelato inay sugto daafurkiisa iyo dambarkiisa muddo ku siban 9 sano waxaan aaminsanahay in mulkiilayaasha mashruucani ay heli karayeen inay hantidooda ku maalgashadaan mashaariic kale oo ay faa'iido degdeg ah ka helaan balse macaashkii ka sokow ay mudnaan siiyeen maslaxadda guud ee qaranka mudanayaal iyo marweyn xaalufinta deegaanka goynta dhirta iyo dhuxul shidistu waxay ka mid yihiin aafooyinka ugu waaweyn oo madaxaanina haysta dhinaca kale waxay ka mid yihiin arrimaha sababa abaaraha ba'an ee dalkeena ku soo noqnoqda sidaa darteed waxaan madaxweyne ahaan dardargeliyey daryeelka iyo ilaalinta deegaanka Somaliland waxaan soo saaray 2 wareegto madaxweyne taariikhdu markay ahayd 6 bishii 9 2014 wareegtadaasi waxay sugaysay ilaalinta deegaanka Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale waxay wareegto madaxweyne ku soo saaray 10 bishii 1 2016 xeerka ilaalinta dhirta iyo ugaadha xeerka lambar 69 stroke 2015 kaas oo mamnuucaya in la shido dhir qoyan loona isticmaalo dhuxul anigoo munaasabadda ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo wasaaradda deegaanka oo hormuud ka tahay wasiirka shukri xil weyna iska saareen wacyigelinta iyo joojinta dhuxusha taasoo iminka bulshadu ay u bislaatay haddaba maadaama isticmaalka dhuxusha uu dhibaato badan ku hayo dhulkeenna waxaan dhiirigelinaynaa isticmaalka tamarta kale ee bedeli karta si loo yareeyo jarista dhulta isticmaalka gaasta waxaa laga maarmi karaa inaynu isticmaalno dhuxusha cadaadda inuu noqotay taasoo deegaankeenna dabargoynaysa si mashruucan u hana qaado waxaan kula talinayaa shirkadaha Somgas inay hoos u dhigto qiimaha gaasta si bulshada dayarta u awoodi karta inay iibsadaan arrintaa waa inaynu dhug iyo daymo u yeeshaan madaxda mashruucan maalgelisay mudanayaal iyo marweyn xukuumadda aan galwadaan ka ahay waxay siyaasadeeda udub dhexaad u ah inay dhiirigeliso maalgashiga ay dalkooda ku samaynayaan ganacsatada reer Somaliland sidoo kale waxaan naga go'an inaan dalkayaga iyo dadkayaga u samayno saaxiibo badan oo siyaasadeed dhaqaale iyo ganacsi kuwaasoo suurtagelin kara in lagu tallaabsado horumar ballaaran iyo maalgashi mug leh waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo dalkayaga maalgashi ku samaynaysa kaasoo manfac iyo maslaxadba dalkayaga ugu jirto mar kale waxaan ganacsatada kale ee Soomaaliya ugu baaqayaa inay ku dadaalaan sida dalkooda u maalgashan lahaayeen hantidoodana ugu hori lahaayeen dhulkooda hooyo si uu dhaqaalaheenu
u kobco loona abuuro fursado shaqo. ugu dambeyn waxaan shacbigayga ugu baaqayaa inay soo dhaweeyaan horumarka iyo mashaariicda balgashi ee maslaxadooda ku jirto isla markaana ay feejignaadaan aragtiyaha ka feejignaadaan aragtiyaha xun ee horseedaya kala qoqobka qabyaaladda qaranjabka iyo inay khayrkooda hoos maraan qarniyo badan shadaan midnimada iyo wadajirka dhexdooda cadowgoodana dhinac uga soo wada jeestaan. waxaan kaloo ku dardaarmayaa dhammaan kula dardaarmaya shacbiga Somaliland inay isu naxariistaan oo iscaawiyaan xilligan lagu jiro dabayaqadii abaarta aafaysay dunida iyo dad badan. allahow abaartan laga jabi, allahow tubta toosan lagu hanuuni, allahow ma dooran kare adigu noo doon, allahow bogayoga balcadsu mari, allahow tacabka ubadka adduunka iyo aradkaba intaba noo islaaxi. آمين آمين آمين. dekeda berbera oo runtii uu ku mutaystay howlkarnimadii iyo dejintii haamaha waaweyn iyo waxaad adduun arkaysaan iyo handhalinkoodii iyo wiisha soo diristoodii howlgalkii aan kala go' lahayn uu ku mutaystay. baa ii hadhay waxaanu halkan ku guddoonsiinaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda marwa samsam cabdi wasiirka wasaaradda ganacsiga oo uu ku mutaystay kartidiisa iyo taageeradii hagarla'aanta ahayd ee uu lala garab joogay muddadii uu xafiiska joogay. waxaan halkan uga yeerayaa wasiirka wasaaradda tamarta xuseen cabdi ducaale falyatafadal mashkuuran. runtii isagu wuxuu dhaafay wasiiro kastamar buu nala bilaababa isagu waa ragginta har garab taagnaa muddada dheer aad baan ugu faraxsanay inaan maanta halkan ka guddoonsiino gaari ku shaqaynaya gaasta aad aragtaan. gaarigaasi halkaasuu taagan yahay waxa uu ku shaqeeyaa gaasta halkaasna iyadaanu ku keennay waa gaarigii ugu horreeyay waddanka yimi. waxaanu isla garanay maanta inaanu surprise kaga dhigno cid aanan hore ugu sii sheegin oo aanu furaheeda halkan ku wareejinno. waxaan gaarigaa ku wareejinayaa madaxweynaha hortiisa. qofku haddii uu shaqo qaranka uu madaxweynuhu u igmado oo uu shaqadii ka soo baxo ka shacab ahaan annaga waxaa nagu waajiba inaanu u mahadnaqno, inaanu dhiiri gelinno, inaanu runtii yacni aad u maamuusno. waxaanu maanta halkan gaariga aad arkaysaan ee otogaaska ee gaaska ku shaqaynaya aan furaheeda ku wareejinayaa marwe shukri xaaji ismaaciil bandare. wuxuu yidhi waa xiin finiin neefkan aad xadhigga haysaaye xadhiggiisa qabo aadmi kale kuma xurmeeyeen furihiisa qabo. soo kaco oo madaxweynaha guddoonsiyo shahaadadii aan ugu tala galnay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland.